Deegaanka Xananbuure oo colaad muddo dheer soo jirtay ragaadisay horena dagaallo dhiig badan ku daatay ay uga dhaceen ayaa si weyn magaalada looga dareemayaa burburka soo gaaray dagaaladu intii ay dhacayeen. Warbaahinta qaranka ayaa ku wargashay xaaladda dhabta ah ee halkaasi ka jirta. Waxa aan ku soo aragnay xaalado ka dhashay dagaaladii halkaasi horay uga dhacay, sida burbur iyo raadadka hubka iyo rasaastii la isticmaalay dagaaladu intii ay dhacayeen labada maleeshiyana halkaasi ay ku dagaalamayeen. Hadda waxaa soconaya nabadeyn iyo waanwaan la doonayo in nabadii deegaanka dib loogu soo dabaalo. Maamulada Dhuusamareeb iyo Cadaado, madax ka socota ciidamada booliiska federaalka ee Soomaaliya oo halkaasi ku sugan ayaa hirgeliyey in muddo toddobaad ah deegaanku noqdo mid xasiloon, waxaana la kala qaaday labadii maleeshiya beeleed ee muddaba halkaasi ku dagaalamayay dhufayskana isugu jiray sanadihii lasoo dhaafay. Waxa aan halkaasi gaaray Khamiistii la soo dhaafay saacaddu markay ahayd 12:05 oo duhurnimo. Xaaladduna waxa ay ahayd mid deggan. Waxa aan halkaasi ku arkay dad aan sidaasi u badnayn iyo goobo ganacsi oo furan, walow badankooda dadku ay dibadjoog ka ahaayeen deegaanka Xananbuure. Dadku waxa ay quudaraynayaan nabad iyo xasillooni Xananbuure hesho, waxa ayna ku soo dhiiradeen xabajoojinta dib looga hirgeliyey oo ay horkacayaan maamulada degmooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado. Ciidamada booliiskuna halkaasi ay ka howlgalayaan. Ciidamada ayaa si taxaddar leh amniga u sugaya gudaha deegaanka Xananbuure, waxaana laga mamnuucay in hub lagu dhex qaato marka laga reebo kan laamaha amnigu ay isticmaalayaan, gaar ahaan ciidamada booliiska ee amniga deegaanka lagu sugayo. Adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ayaa sanadihii colaaddu taagneyd maqnaa. Deegaankuna waxa uu dib uga dhacay deegaano markii hore uu isagu ka horreeyay. Balliga biyo-qabadka leh ee Xananbuure caanka ku tahay ayaa biyaha hayn kari la, maadaama halkaasi roobab ay ka da'ayeen maalmihii lasoo dhaafay xoog leh. Balse waxa ay u baahan tahay Xananbuure xasillooni iyo nabad oo ay hesho. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, Warbaahinta Qaranka, Dhuusamareeb.